أنا waxaan ku idhaahdaa dhalinyarada ha guursanin adigoo course-ka qaata mooyaane course sida reer loo dhaqo course sida caruur loo koriyo adigoo barta mooyaane ha guursan waayo waddanka markaad joogteen cid ku kaalmaysaad lahayd ayeeye iyo habaryar iyo eedooyin iyo aduu berisku maamad soo xoojin jirtay carruurtan dad kale korsan jiray halkaase waa labadiinoo qudha cid kaloo idinla korinaysaa ma jirto therefore waa inaad adigu noqotaa qof aqoon-yahan oo garanaya ilmahaagu 2 jir muxuu u baahan yahay 3 jir muxuu u baahan yahay 4 jir siduu u fakarayaa baahidiisu waa maxay waanaad garan kartaa markaasaad la tacaamuli kartaa adigoo aan kuug ahayn haddii raashinka u fiican lagu dhiibo maxaad soo saari oo lagu yidhaha soo kare booshaaqu maad keenayso maaha waxaan dhadhan lahayn waa la mid adigoo muslim oo fiican oo aan garanaysaa loo koriyo haddii ilma lagu dhiibo booshaaqu maad keenaysaa ilan garan maysid dabkhada sida waxaan loo kariyo ma garanaysid haddii saa in yar lagu tababaro xataa criderska haddii qaar kaa dhiman yihiin wax macaan waad ka samayn kartaa adigoo minimum wixii aad haysato isticmaali karaya haddii lagu tababaro marka aniga weedhaydi waxa weeyaan inta aynan tababarkaa qaadan carruurtan waa la gurayaa qaanuunkaana ogol qaanuunkuna abiyusku ka ilaalinaya waxaad adigu aanad u haysan inaad abiyus tahayna qaanuunka wuxuu qoraya inay abiyustay ku xadgudub carruureed inay tahay si awgeed intaynu eedda iyaga saarayno waxaynu u baahnay inaynu nagu dib isugu noqono